ugu dambeyn waxa jirta xarun la yiraahdo xarunta dhaqanka macada waa dhaqankii waa majhuul waa nakira laakiin waxa la xarunta dhaqanka Hargeysa dhaqanka Soomaalida dhaqanka Kristaanka dhaqanka Islaamka dhaqanka Almaaninta macada xarunta maxaad ka ogtahay xarunta waxaan ku ogeeyay xitaa xarun dhaqan biis oo aanay ahayn dhaqan wanaajin dhaqanka biiso xaruntaas waa xarunta keenta dhalinyarada iyo wiilashu inay isdhexgal fool xun sameeyaan ciyaaro ay ugu tala galeen iyo labisyo aan wanaagsanayn oo shariicada waafaqsanayn way keenaan thaqafo iyo aqoon aan yahayna way soo waaridaan nimanka la sheegayo iyo gabar mar dambe la keeno iyaduna ahay dumarkan waxyaalahan u ololeeya iyadana waa keeneen xaruntaasi waa xarun soo waarida dhaqamo ayna shaqo ku lahayn oo dhaqamadii ummadaha kale ee kufriga ay keentaa fan la yaab leh oo ku socda si cajiibana waa u habeesan tahayo aad dareemi karayso in looga goleeyahay in meel fog dadkeena gaarsiiso sida uga xarunta iyo cidii shaqo ku laba waxaan leenahay xaruntaasi dalkan ma anfacdo waxaan anfacaysa xarun dhaqankii islaamka ee Soomaaliyeed ee asturna ee hidaha laha ee haybada laha ee xishoodka laha in la soo celiyo waxaan arkayay hablo yar oo laga hadlayo xaydkooda iyo goortay caadada helaan iyo arrimo badan noocaas oo afka laga ilaalin jiray laga wareysanayo oo hawlaha la geliyo marka xaruntaasi waa xarun aan sinaba anfacayn waxaan kula talinayaa qolooyinka mas'uuliyiinta inay arrinka talaabo ka qaadaan oo xaruntaasi khad loo dhigo cad oo ay ku hagaajin karto dhaqankeeda hadana ku hagaajinayna albaabada loo laabo oo meel dhaanta leeyahay bedelo waxay ka dhigan tahay inay ku casuumaan dad yani ku caana luwaadka yani waxa yaraan waxa laba qof baa cadaaday gabadh 15 tibi iyo nin wuxuu hayimi 18 ama 19 aan idhaahdo maxay ka dhigan tahay maxay muujinaysaa waxay muujinaysaa arrimaha dhiirigeliya oo ay helaan naadigii kuwa noocan sameeyay misliinta naadigii misliyaadka dumarka way adduunkii Ilaahay qaarabay batay laba qof oo noocaas oo ku sintan arinta mushkiladda inaad ka soo casuunto madad baad weeyay waa cadda iyo hadal malaha waa dhiirigelin iyo dacwad iyo baaq lagu baaqayo inay dadku inxiraafaan oo dhaqankoodii subana ay ka tagaan waana qadiida aan la gaban inna kama baqanin dawladda aan ixtiraamin diin baan ixtiraamin culimo baan ixtiraamin aqoonyahan iyo waasiyo iyo saraadin baan ixtiraamin waayeel iyo dad kale aan ixtiraamin way bareereen inay ummadda sanka ka marmarayaan waxaan wanaagsaneyn qadiyadana si cad ilaa maanta ugama cudur daaran markii ugu badnaa ma maqlay wuxuu ahaa anagu ma naan aqoon si kala loo soo sameeyo cudur daaran rakhaysa waan meel gaarsiismin baan maraysi waxba naga gelin bay ku leeyeen anaga buugiisa noqosay bay ku leeyeen wax soconayma waxa weeyaan waxa uu yeelatay inuu waa macruuf min qof qarsoon baba ahayn qof qarsoon wax kala soo baxeen waa cudur daaran laakiin qof la yaqaan oo caana suurtagal ma marka xarunta ragga jooga Ilaahay ka baqdaan ummadoodana ay fasaadin ummadda waa haday kamid yihiin oo tabaqanaya way hadana kamid ahayna kuwa kamid yihiin haw tagaan ummadana faraha ka qaadaan sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi wa sallam aad u maasanta jazakallahu khayr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh